soo dhawaada daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa daawada xogtii ugu dambeysay qaraxyo xoogan oo daqiiqado gudaheeda ka kala dhacay degmooyinka kala ah Buulobarde iyo sidoo kale Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Qaraxyadan oo ahaa kuwo aad u xoogan ayaa geystay khasaare aad u xoogan waxaana ay ku soo gudbin doonaa xogtii ugu dambeysay ee qaraxyadan kuwaasi oo laga soo warinayo in dhimasho iyo dhaawac mas'uuliyiin ee ka kala tirsan degmooyinka Jalalaqsi iyo sidoo kale Buulobarde. balse marka hore inta aan guda gelin faahfaahinta xogta ku aadan qaraxyadaasi waaweyn ee goordhaweyd ee ka dhacay degmooyinka Jalalaqsi iyo sidoo kale Buulobarde waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo sii share gareysa saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan. wararka naga soo gaaraya degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan waxaa la soo sheegayaa in buundada degmada oo galabta ka dhacay qarax aad u xoogan kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. qaraxan oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Buulobarde ayaa goobjoogayaal waxa ay inoo xaqiijiyeen inuu ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa kaasi oo lagu burburiyay buundada ee kala qaybisa degmada Buulobarde iyo deegaanada hoostaga. sawiro ee laga soo qaaday halka uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaya buundada oo laba qayb u kala go'day isla markaana xilligan uusan jirin isu socodkii gaadiidka ee degmada labadeeda qaybood u kala gooshayay. waxaa sidoo kale jira dad dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxan xoogan ee ka dhacay degmada Buulobarde gaar ahaan buundada degmadaasi. ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee degmada Buulobarde iyo mas'uuliyiin kale ayaa tagay halka uu qaraxan ka dhacay iyada oo isbitaalka degmada Buulobarde la geeyay dad qaraxaasi ku waxyeeloobay. dhanka kaleeto qarax aad u xoogan ayaa isla daqiiqada kadib markii uu dhacay qaraxii ee lala eegtay buundada degmada Buulobarde waxa uu ka dhacay degmada Jalalaqsi ee isla gobolka Hiiraan. wararka ee naga soo gaaraya degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in qarax aad u xoogan uu goordhow ka dhacay. qaraxan ayaana geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. qaraxa ayaana jugtiisa laga maqlay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. qaraxan ayaa daqiiqado waxa uu ka dambeeyay qaraxii ka dhacay degmada Buulobarde isla gobolka Hiiraan. waxaa la soo sheegayaa in qaraxan uu ahaa gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay kaasi oo ku qarxay galbeedka degmada Jalalaqsi oo ah meel u dhow buundada kala qaybisada degmada Jalalaqsi. waxaana la leeyahay ujeedka qaraxan waxa uu ahaa in lala eegto buundada degmada Jalalaqsi si lamida qaraxii ka dhacay degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan. khasaare kala duwan ayaa qaraxan ka dhashay waxaana ku geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Cagajoof kaasi oo dhaawac ka soo gaaray qaraxan ugu dambeyn u geeriyooday. khasaaraha intaasi waa ka badan yahay qaraxan ka dhacay degmada Jalalaqsi waxaana jira dhimasho iyo dhaawac laga soo warinaya halkaasi. wixii xog ah ee ku soo kordha qaraxyadan xoogan ee koordhaweyd ee ka dhacay degmooyinka kala ah Buulobarde iyo sidoo kale Jalalaqsi ayaan kula wadaagi doonaa wararkeena xiga ee aan ku baahina halkan daawade. dhanka kaleetana dawladda ayaa sheegtay in ay howlgallo ku dishay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. ciidamada ururka 8aad guutada 18aad ee kumaandooska Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano u dhow deegaanka Nuur Fanax ee gobolka Hiiraan.
howlgalkan ayaa waxaa la sheegay in ciidamada kumaandooska ay ku bartilmaameedsadeen xubno mararka qaarkii lagu arki jiray tuulooyinka ku dhow deegaanka Nuurfanax ee gobolka Hiiraan. saraakiisha ciidanka danab ayaa sheegay in howlgalkan ay ku dileen 7 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib dagaal kooban oo ay kala kulmeen aaga deegaanka Nuurfanax ee gobolka Hiiraan. sidoo kale waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada ee bartilmaameedka ah ilaa deegaanada gobolka Hiiraan laga saariyo ururka Al-Shabaab ee gabi ahaantiisaba. daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay wixii xog ah ee ku soo kordha wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa, balse marka hore daawade waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like taabato oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada si ay ula socdaan mar waliba xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkan fadlan subscribe taabo oo gambaleelka u furo si aad mar waliba ula socoto xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan annagoo ku baahina halkan daqiiqada ka dambeysa. waxaan mar waliba u taaganahay inaan daawada ku soo gudbino dhacdooyinka taagan iyo sidoo kale siraha dahsoon ee siyaasadeed ee ka jira dalka iyo sidoo kale daafaha caalamka. balse si aad mar waliba ula socoto xogtan daawade waa in aad channelka subscribe taabato oo aad gambaleelka furato xogtaana u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. Gobson TV mar walba waxa uu taagan yahay inuu ka haqabtiro xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale xaaladaha dalka ka jira adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqo.